بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كلن كأننا صحافته وحاو كسابسن yahay shaacin xogta liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha degmooyinka Qardho Eyl iyo Ufayn. Guddiga ku-meelgaarka doorashooyinka Puntland waxa uu si rasmi ah maantay oo ay taariikhdu tahay 4 bisha August 2022 u shaaciyay xogta liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha degmooyinka Qardho Eyl iyo Ufayn. horey guddigu wuxuu u shaaciyay 27 Juun sanadkan 2022 liiska hordhaca ah ee codbixiyaasha degmooyinka sida uu qabo xeerka codbixiyaasha ee Puntland. haddaba waxaan kala qaadqaadaynaa wadarta guud iyo degmo xogta liiska rasmiga ahi waa sida tan. wadarta guud waa 48,353 wadarta saxa ah ama saxsan waa 46,839 oo u dhiganta boqolkiiba 96.6. nuqulada labanlaabka ah waa 380. xogta aan dhammaystirmin waa 1,134 oo u dhiganta tirada guud 2.3. xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Qardho wadarta guud waxay noqotay 26,285. wadarta saxsan waxay noqotay 25,405 oo u dhiganta boqollayda marka la yiraahdo 96.6 boqolkiiba. nuqulada labanlaabka ah waa 207 cod. xogta aan dhammaystirminna waa 673. xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Eyl waa sidan. wadarta guud 11,837. wadarta saxsan waxay noqotay 11,470 oo u dhiganta 96.9 boqolkiiba. nuqulada labanlaabka ah waa 78. xogta aan dhammaystirmin waa 289. markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Ufayn wadarta guud waxay noqotay 10,230. wadarta saxsanna waxay noqotay 9,964 oo u dhiganta boqolkiiba 97.2. nuqulada labanlaabka ah waa 95. xogta aan dhammaystirminna waa 172. xogta liiska oo faahfaahsan una kala qaadan ama u kala jaban lab iyo dhadig da'da iyo goobta codbixintana waxaad ka daalacan kartaan mareegta guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka oo ah www.tbec.pl.so.